labada dal ee ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub, Sweden iyo Finland si rasmi ah ayay codsigooda ugu gudbiyeen xogayaha guud ee isbahaysiga difaaca ee NATO. Waxa la dhowrayaa waa go'aanka gaarista 30 wadan ee xubnaha ka ah isbahaysiga kan sida u wajihi doonaan qadiyadda todobaadadii ugu dambeeyay dunida oo dhan sida weyn looga hadalhayay. Moscow weli waxay diyaarinaysaa qorshe kasta oo ay ku dhaawici karto aragtida reer galbeedka. Guux ayaana ka imaanaya Ruushka. Putin iyo kooxdiisa qubarada ahna waxay diyaarinayaan saansaan siyaasad iyo sahan mar kale muujinaya midnimadooda lama huraanka ah iyo mowqifyadooda muhiimka ah. Faransa hadda waxa ay diyaar u tahay inay taageerto Sweden iyo Finland, kuwaas oo dhawaan ku dhawaaqay go'aankooda ku biirista NATO siyaasad ahaan iyo military ahaanba, iyo inay ka ilaaliyaan labada wadan ee waqooyiga Yurub ku yaala khatar kasta ama weerar halis ah oo u yimaada. Sidaasi warkani waxaa laga soo xigtay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka Faransiiska, iyada oo Ruushka ku hanjabay jawaab culus inuu ka bixin doono ballaarinta xulafada reer galbeedka ee isbahaysiga kan. qof kasta oo isku dayaya inuu tijaabiyo midnimada Yurub isagoo u hanjabaya ama weeraraya madaxbanaanidooda, si kastaba ha ahaatee waa inuu hubiyaa in Faransiisku uu garbaha la garab istaagi doono Finland iyo Sweden, ayay mar kale xukuumadda Paris xaqiijisay. waxay intaasi ku dartay Faransiiska waxay dib u xaqiijinaysaa go'aankeeda iyo wadajirkeeda iyada oo la eegayo qodobka 42.7 ee heshiiska midowga Yurub, waxayna diyaar u tahay inay kordhiso iskaashiga amniga iyo difaaca ee labada dhinac oo ay ku jiraan iyada oo loo marayo la tashiyo siyaasadeed oo heer sare ah iyo isdhexgalka military oo aad loo xoojinayo. labada wadan ee waqooyiga Yurub ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay inay raasan doonaan xubinnimada NATO, taasoo soo afjaraysa 10 sano oo ciidan la'aan ah, tallaabo taariikhi ah oo u horseedaysa duulaanka Ruushka ee Ukraine inay ka qaataan 10 iyo tusaale wada jira. Moscow ayaa marar badan ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii Helsinki iyo Stockholm ay ku biiraan NATO. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhawaan sheegay in wadankiisu wax dhibaato ah kuma qabi doono Sweden ama Finland marka ay codsanayaan xubinnimada NATO, laakiin ballaarinta kaabayaasha military ee dhulkan ayaa dabcan dhalin doona falcelinta iyada jawaab halis ah oo aysan cidna u noqon doonin 10 qaadano.